السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحدي عافيمات تامية نور وناكسن باني رجينا يا ورها شرفت بدن ملكستو أدون كاد كجوكتان erectile dysfunction haweenka ma ku yimaada haddii uu ku yimaadana madaba keenta mise caafimaad darro ayaa keenta arrintaas aynu insha Allah muuqaalka kaga jawaabi doonaa dumarkan xaaladda la erectile dysfunction-ka waa kacsiga oo hoos u dhaca waxa caan ku ah oo common ku ah waa ragga haweeneyda dareenkeedu ma yaraan karaa haweeneyda dareenkeedu hoos buu dhici karaa xaaladaha inta badan dhibaatooyinka maskaxeed xanuunada maskaxeed iyo dhinaca dhibirka ayaa inta badan ku sababa haweenka inay dareenku ka yaraado ama ay kacsan waayaan waxa laakiin jirtan xagga age-ka ayaa aad ugu kala bedelan yahay dhakhaatiirta qoysku waxay tilmaamaan ninku marka uu weynaado waxa yaraada dareenkiisa laakiin dhalmadiisu way sii socotaa haweenayduna marka ay weynaato dhalmada ayaa iska taagta laakiin dareenkeedu wuu sii socdaa halkaas inaynu si fiican iskula fahanno ayaa aad iyo aad muhiim u ah ninku markasta oo uu sii weynaado dareenkiisu hoos buu sii dhacaa laakiin haddii uu haweenay u galmoodo biyihii waa leeyahay oo wuu dhalayaa oo biyihii markaa way ka imanayaan ugxantii haweenaydana dee wuu qarxinayaan biyahaasi way bacriminayaan oo haweenaydii uur bay qaadaysaa haddii ilaahay u qoro inay lamaanahaasi ay wax dhalaan oo ninku isagu age-ku dhalmadiisa ma saamayso laakiin waxay saamaysaa erectionkiisa oo waxay ka dhigtaa markaa ninka dareenkiisu inuu daciifo laakiin haweenka xagga da'da markiiba haweenaydu markay da'deedu weynaatay 45 ay gaadho waxay saamaysaa dhalmadeeda oo ugxantiibaa ka dhamaata oo waxay gashaa xaalad la yidhaahdo menopause oo markaa caadadiibaa iska taagta oo haweenaydu ma dhasho laakiin dareenkeeda da'daasi ma saamayso ee dareenkeedu wuu socdaa oo dareenkeeda weliba dhakhaatiirtu waxay dhahaan sida da'du ay u saamayso dareenka ninka ama dareenka ragga da'du uma saamayso dareenka haweenayda oo isdil haweenaydu hadday nolol fiican ku sii nooshahay iyadoo qof weyna ayaa dareenkeedii fiican yahay haddii maskax ahaan ay u badqabto jir ahaan ay u caafimaad qabto cunto fiican ay qaadato nasashana ay ku jirto in dareenkeedu uu fiican yahay oo weliba xilligii markaas da'ada dhexe ay ku jirtay dareenkeedii oo kale way heli kartaa bay leeyihiin laakiin ninku haddii da'du ay ku timaado isagoo jir ahaan caafimaad qaba ayuu dareenku aad u daciifayaa isagoo maskax ahaan caafimaad qaba ayaa dareenku aad u daciifayaa isagoo resting iyo relaxation ku jiro oo xaalad nasasho ku jira ayaa dareenku aad u daciifayaa isagoo cunto fiican isticmaalaya ayaa dareenku aad u daciifaya laakiin weli waa dhalayaa intaa waxaan filayaa inaynu si fiican iskula fahanay da'du dareenka haweenka saameyn weyn uma geysato ee dhalmadan ayay saamaysaa ninkana dhalmada da'du ma saamayso ee waxa ay saamaysaa waa dareenkiisa sidaas ayaa dhakhaatiirta qoysku inta badan ay soo bandhigaan ugu dambeyntii dareenka haweenayda iyo taninkaba wuxuu markasta ku xidhnaanayaa xaaladda caafimaad iyo xaaladda caafimaad ee jireed iyo ka maskaxeed iyo cuntada uu qaadanaya iyo nasashadiisa iyo raaxada uu ku jiro ayaa markasta ku xidhnaanaya inahaas ayaan ku soo ururinayaa muuqaalkan markasta wixii su'aalaad qabtaan feel free waa inaad ina soo weydiin kartaan su'aalaha markaas insha Allah waynu ka soo jawaabaynaa kommentiyada laftooda waynu arkinaa oo muuqaalo aynu insha Allah ka soo samayn doonaa inahaas aan ku soo koobaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.